ku soo dhawow xog waran news. salaama saaxiibayaal halkan waa barta YouTube-ka aynu ku leenahay ee xog waran media qodobada caawa wararkayaga aynu idin hayno idin aad maqli doontaan waxa ka mid noqon doona dagaal culus oo galinkii dambe maanta ka qarxay magaalada Boosaaso una dhaxeeyay taliyihii hore ee BSF iyo taliyaha cusub ee Puntland ee BSF faahfaahin ka soo baxay dagaal qaraar oo maanta sidoo kale ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud qodobada kale ee daawan doontaan saaxiibayaal waxa ka mid noqon doona booliiska Muqdisho oo weeraray guri lagu beeriyay waxyaabaha ammaanka duuriya sidoo kale daawadayaal waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan golaha midowga musharaxiinta iyo kulanka maanta dhexmaray golaha wadatashiga qaran barnaamijka ayaad ku daawan doontaan iyo dawladda Kenya oo sheegtay in ay xuduudda Soomaaliya ay la leedahay ay dib u furi doonto qodobadaas ayaad ku maqli doontaan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe-ka noo saar haddii aad nala joogtiin waad ku mahadsan tahay warkaas oo dhanna caawa waxa la diyaaraa waryahayaga aynu ku horeynaa daawadayaal macluumaad dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal ka dhacay magaalada Boosaaso kaasi u dhaxeeyay ciidanka amniga Puntland iyo kuwa PSF ee taabacsan agaasimihii hore General Maxamuud Cusmaan Diyaano israsaasaynta oo socotay muddo kooban ayaa waxa ay ka dhacday agagaarka xirada la yiraahdo Cawska ee ku taala Boosaaso sida uu sheegay taliska booliiska wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka uu dhaxmaray ciidamo uu watay agaasimaha magacaaban ee PSF sareeyo guuto Maxamed Aamin iyo kuwa taabacsan agaasimihii hore Maxamuud Diyaano taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari ee dawlad goboleedka Puntland gaashaan la sare Cabdilqaadir Jaamac Dirir oo u waramay VOA ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi waxaana uu xaqiijin iska horimaadkaasi uu ku dhintay hal askari mid kalena dhaawac uu soo gaaray Dirir ayaa sidoo kale sheegay in la baarayo sida ay wax u dhaceen isagoona tilmaamay in ciddii bilowday dagaalka ay qaadi doonto mas'uuliyadda xaaladda ayaa haatan degan waxaana dagaalka uu ku soo aaday xilli hore madaxweyne Deni uu xabad joojin ugu baaqay dhinacyada halkaasi ku dagaalamay si kastaba waxaa weli socdaa dadaalo ay wadaan mas'uuliyiintii hore ee xilal uga soo qabtay maamulka Puntland iyo waxgaradka deegaanka kuwaasi oo lagu soo afjarayo xiisadda Puntland iyo PSF dhanka kale daawadayaal wararka naga soo gaarayo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhaxeeyo ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya dagaalka ayaa waxa uu u dhaxeeyaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Galmudug iyo ciidamada Gorgor oo magaalada Gurceel loogu geeyay dagaalkii lagula jiray kooxda Ahlu Sunna israsaasaynta ayaa ka dambeysay khilaaf ka dhashay askar ka tirsan ciidamada Gorgor oo ka mid noqday dad ay xireen shalayto ciidanka booliiska laguna eedeeyay falal amni darro ah in ay qayb ka ahaayeen ciidamada ka tirsan kuwa Gorgor oo ka carooday xariga ciidamada kale ayaa gudaha u galay degmada Gurceel taasi oo keentay inay isku dhacaan iyaga iyo ciidamada booliiska ee saldhigga degmada Gurceel sida dad goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen channelkeena dagaalka ayaa waxa ku dhintay 2 askari halka 2 qof oo mid kamida uu yahay shacabna ay ku dhaawacmeen wararka ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in labada ciidan ee dagaalamay ay weli is hor fadhiyaan waxaana ciidamada Gorgor ay joogaan agagarka shirkadda Beder halka ciidanka booliiskana ay ku sugan yihiin saldhigga booliiska ilaa dhabarka dambe ee Quraca maqaayada la yiraahdo Xadiyo faahfaahin kala duwan ayaa waxa laga helayaa dilal ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan duleedka magaalada kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab inay ka dambeysay weerarka koobaad ayaa ka dhacay degmada Warta Nabadda waxaana lagu dilay Ismaaciil Maxamed Aadan sida ay sheegtay kooxda Al-Shabaab marxuumka ay kooxdu sheegtay inuu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalabaad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal u dhaxeeyo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo ciidamo daacad u ah agaasimaha PSF ee xilka laga qaaday
oo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo khasaare laga soo sheegayo in dagaalkaasi uu ka dhashay. Warbixinadii ugu dambeeyay dagaal dhexmaray ciidamada Gorgor iyo kuwa Galmudug oo ka dhacay magaalada Guriceel. Booliiska magaalada Muqdisho oo weeraray guri ku yaala Muqdisho oo lagu beeray daroogada. Golaha wadatashiga qaranka oo maanta Muqdisho kulan kula yeeshay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kalana hadlay arrimaha ku saabsan dardargelinta doorashooyinka. Iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan dawladda Kenya oo ku dhawaaqday inay dib u furayso xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino. aynu ku horeynaa daawadayaal macluumaad dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal ka dhacay magaalada Boosaaso kaasi u dhaxeeyay ciidanka amniga Puntland iyo kuwa PSF ee taabacsan agaasimihii hore General Maxamuud Cusmaan Diyaano. Israsaasaynta oo socotay muddo kooban ayaa waxa ay ka dhacday agagaarka xerada la yiraahdo Cawska ee ku taala Boosaaso sida uu sheegay taliska booliiska. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka uu dhaxmaray ciidamo uu watay agaasimaha magacaaban ee PSF sareeyo guuto Maxamed Aamin iyo kuwa taabacsan agaasimihii hore Maxamuud Diyaano. taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari ee dawlad goboleedka Puntland gaashaanla sare Cabdilqaadir Jaamac Dirir oo u waramay VOA ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi waxaana uu xaqiijiyay in iska horimaadkaasi uu ku dhintay hal askari mid kalena dhaawac uu soo gaaray. Dirir ayaa sidoo kale sheegay in la baarayo sida ay wax u dhaceen isagoona tilmaamay in ciddii bilowday dagaalka ay qaadi doonto mas'uuliyadda. xaaladda ayaa haatan degan waxaana dagaalka uu ku soo aaday xilli hore madaxweyne Deni uu xabad joojin ugu baaqay dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. si kastaba waxaa weli socdaa dadaallo ay wadaan mas'uuliyiintii hore ee xilal uga soo qabtay maamulka Puntland iyo waxgaradka deegaanka kuwaasi oo lagu soo afjarayo xiisadda Puntland iyo PSF. dhanka kale daawadayaal wararka naga soo gaarayo magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhaxeeyo ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. dagaalka ayaa waxa uu u dhaxeeyaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Galmudug iyo ciidamada Gorgor oo magaalada Guriceel loogu geeyay dagaalkii lagula jiray kooxda Ahlu Sunna. Israsaasaynta ayaa ka dambeysay khilaaf ka dhashay askar ka tirsan ciidamada Gorgor oo ka mid noqday dad ay xireen shalayto ciidanka booliiska laguna eedeeyay falal amni darro ah in ay qayb ka ahaayeen. ciidamada ka tirsan kuwa Gorgor oo ka carooday xariga ciidamada kale ayaa gudaha u galay degmada Guriceel taasi oo keentay inay isku dhacaan iyaga iyo ciidamada booliiska ee saldhigga degmada Guriceel. sida dad goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen channelkeena dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 2 askari halka 2 qof oo mid ka mida uu yahay shacabna ay ku dhaawacmeen. wararka ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in labada ciidan ee dagaalamay ay weli is hor fadhiyaan waxaana ciidamada Gorgor ay joogaan agagarka shirkadda Beder halka ciidanka booliiskana ay ku sugan yihiin saldhigga booliiska ilaa dhabarka dambe ee Quraca maqaayadda la yiraahdo Xadiyo. faahfaahinna kala duwan ayaa waxaa laga helayaa dilal ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan duleedka magaalada kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab inay ka dambeysay. weerarka koobaad ayaa ka dhacay degmada Warta Nabadda waxaana lagu dilay Ismaaciil Maxamed Aadan sida ay sheegtay kooxda Al-Shabaab. marxuumka ay kooxdu sheegtay inuu kulanti wacan oo wanaagsan. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo alaabaad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka. qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal u dhaxeeyo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo ciidamo daacad u ah agaasimaha PSF ee xilka laga qaaday oo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo khasaare laga soo sheegayo in dagaalkaasi uu ka dhashay. warbixinadii ugu dambeeyay dagaal dhaxmaray ciidamada Gorgor iyo kuwa Galmudug oo ka dhacay magaalada Guriceel. booliiska magaalada Muqdisho oo weeraray guri ku yaala Muqdisho oo lagu beeray daroogada. golaha wadatashiga qaranka oo maanta Muqdisho kulan kula yeeshay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kalana hadlay arrimaha ku saabsan dardargelinta doorashooyinka. iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan
dowladda Kenya oo ku dhawaaqday inay dib u furayso xadka ay la wadaagto Soomaaliya. qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelinno. aynu ku horreynay daawadayaal macluumaad dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaal ka dhacay magaalada Boosaaso kaasi u dhaxeeyay ciidanka amniga Puntland iyo kuwa PSF ee taabacsan agaasimihii hore General Maxamuud Cusmaan Diyaano. israsaasaynta oo socotay muddo kooban ayaa waxa ay ka dhacday agagaarka xerada la yiraahdo Cawska ee ku taala Boosaaso sida uu sheegay taliska booliiska. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka uu dhaxmaray ciidamo uu watay agaasimaha magacaaban ee PSF sareeyo guuto Maxamed Aamin iyo kuwa taabacsan agaasimihii hore Maxamuud Diyaano. taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland gaashaanla sare Cabdilqaadir Jaamac Dirir oo u waramay VOA ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi, waxaana uu xaqiijiyay in isku horimaadkaasi uu ku dhintay hal askari mid kalena dhaawac uu soo gaaray. Dirir ayaa sidoo kale sheegay in la baarayo sida ay wax u dhaceen, isagoona tilmaamay in ciddii bilowday dagaalka ay qaadi doonto mas'uuliyadda. xaaladda ayaa haatan degan, waxaana dagaalka uu ku soo aaday xilli hore madaxweyne Deni uu xabad joojin ugu baaqay dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. si kastaba waxaa weli socdaa dadaalo ay wadaan mas'uuliyiintii hore ee xilal uga soo qabtay maamulka Puntland iyo waxgaradka deegaanka, kuwaasi oo lagu soo afjarayo xiisadda Puntland iyo PSF. dhanka kale daawadayaal wararka naga soo gaarayo magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhaxeeyo ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. dagaalka ayaa waxa uu u dhaxeeyaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Galmudug iyo ciidamada Gorgor oo magaalada Guriceel loogu geeyay dagaalkii lagula jiray kooxda Ahlus Sunna. israsaasaynta ayaa ka dambeysay khilaaf ka dhashay askar ka tirsan ciidamada Gorgor oo ka mid noqday dad ay xireen shalayto ciidanka booliiska laguna eedeeyay falal amni darro ah in ay qayb ka ahaayeen. ciidamada ka tirsan kuwa Gorgor oo ka carooday xariga ciidamada kale ayaa gudaha u galay degmada Guriceel, taasi oo keentay inay isku dhacaan iyaga iyo ciidamada booliiska ee saldhigga degmada Guriceel. ku soo dhawow xog waran news.